ma ahan wax la yaab leh inta badan kooxaha kubadda cagta Yurub inay u ciyaaraan xidigo muslima halka hore ay u ahayd taasi cagsigeeda. Mohamed Salah, Karim Benzema, Sadio Mane, Yahya Toure, Ozil iyo xidigo kale oo muslima ayaa ka ciyaara inta badan kooxaha waaweyn ee Yurub. fadlan si aad ula socoto muuqaalada cusub aan soo gelino isla markaana mar walba aad la jaanqaadid subscribe saar la wadaag asxaabtaada oo share leh. aad baan ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Paul Pogba wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah xidigaha muslimiinta ugu magaca weyn ee ka ciyaara qaaradda Yurub. waxaa la sheegaa inay sabab u ahayd in diinteena islaamka u arkay inaysan lahayn kala soocid iyo cunsuriyad. markii ugu horeysay ee soo shacbaxdayna waxay ahayd koobkii adduunka sanadii 2014 markaa oo si rasmi ah u shaaciyay. waxaa had iyo jeer la arkaa marka uu garoomada ka soo muuqanayo isaga oo magacmihiisa kor u taagan yihiin isla markaana faatixada akhrisanaya, iyadoo dhowr jeer uu sheegay inuu jecel yahay in si weyn ugu dhaganaado diinteena suuban ee islaamka. waxa uu sheegay inuu baranayo afka carabiga si uu u xifdiyo qur-aanka kariimka. isagoo booqday masjidka xaramka barakaysan ee magaalada Maka al-Mukarrama si uu halkaasi cumro ugu soo sameeyo. Franck Ribery islaamnimadiisu waxaa door weyn ku lahayd gabadha reer Algeria ee Wahiba. sanadkii 2006 ayuu qaatay diinteena suuban ee islaamka. waqtigaas waxay ahayd markii Wahiba iyo Ribery ay dooneen inay guri yagleelaan oo ay aakhirkii ku guuleysteen inay isguursadaan. Ribery ma jecla isdabamarinta iyo cunista xoolaha qof kale idin la'aan. sidoo kale wuxuu jecel yahay in loogu yeero magaciisa cusub ee Bilaal kadib markii uu qaatay diinteena islaamka. waxa uu si weyn u xafitay inuu haysto diinteena suuban ee islaamka isagoo salaadihiisa ku oga masjid ku yaala xarunta Bayer ee tababarka isla markaana adiga ugu dhisay halkaasi. Nicolas Anelka waxa uu ka mid yahay weeraryahanada ugu waaweyn ee soo maray xulka Faransiiska isla markaana u soo ciyaaray kooxo kala duwan oo Yurub sida PSG, Arsenal, Chelsea, Real Madrid iyo kuwa kale oo waaweyn. Anelka ama magaciisa cusub Cabdisalaam Bilaal waxa uu yiri mar uu ka sheekeynaya qaabkii uu ku islaamay sanadkii 2004 mar aan u ciyaarayay naadiga Fenerbahce waxaan maqlay aadaanka mid ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada Istanbul. halka markaan ka maqlay aadaanka waan gariiray. waxaan u tagay mid ka mid ah culimada Turkiga ee afka Faransiiska ku hadla. waxaan ka codsaday in quraanka xoogaa iga fasiro. wuxuu ii turjumay suurat Yusuf. waan ilmeeyay. halkaas ayaana go'aan ku qaatay inaan muslimo. waxaan ka helay wax kasta oo deganaansho ah oo aan raadinayay. Eric Abidal qisada uu ku soo muslimay waa mid ka mid ah kuwa ugu macaan ama ugu xiisaha badan, waxaana lafdhabar u ah gabadhan oo lagu magacaabo Xayaatul Kabiir. waxa uu bartay markii uu jiray da'da 19 jirka, aakhirkiina waa isguursadeen. balse sababtii uu ku muslimay waxay ahayd kadib markii uu doontay inuu guursado Xayaat ayaa aabaheed waxa uu ku yiri shardiga kaliya ee aan kugu xirayo waxay tahay inaad soo muslimtid oo aad soo gashid diinteena suuban ee islaamka si aad gabadheeda u guursato. halkaas ayuu ka qaatay diinta islaamka isla markaana uu ku guursaday Xayaat. Fred Kanute oo ah mid ka mid ah xidigaha ugu weyn islaamka isla markaana si weyn ugu soo ciyaaray kooxo kala duwan oo Yurub waxaana uu yahay nin si weyn loogu bartay caawinta islaamka. sidoo kale waxa uu ku caanbaxay qadiyada weyn ee muslimiinta ee Falastiin. Kanute waxa lagu xasuustaa go'aankii la meeloobaanka ah ee uu qaatay sanadii 2007 markii uu Sevilla u ciyaarayay. waqtigaas uu badbaadiyay masjid lagu dumin rabay kadib markii waqtigii masjidka lagu ijaaray uu ilaaday. waqtiga waxa la go'aansaday dhulkii masjidka ku yaalay in la dumiyo, balse markii Kanute uu sheekada soo farageliyay ayaa waxa uu iibiyay dhulkii masjidka uu ku yaalay. sidaas uu ku badbaadiyay waxaana uu ka bixiyay qarash gaaraya 700,000 euro waqtigaas oo ay ahayd lacagta sanadkii uu mushaar ahaan u qaadanayay. Adebayor waxa uu markii hore ah Masiixi waxaana markii dambe wadankiisa Togo ku qaatay diinta suuban ee islaamka.
xidigaha kale ee muslimiinta ee diinta islaamka soo galay qaatay waxaa ka mid ah Julian Faber. waxa uu soo ciyaaray kooxo waaweyn oo ka mid tahay kooxda kubadda cagta Real Madrid. waxa uu qaatay diinteena islaamka kadib markii dhalinyaro saaxiibo ahaayeen uu la cajabay diinta islaamka. sidoo kale waxa uu guursaday gabar reer Algeria oo aakhirkii caruur u dhashay. fadlan haddii uu ku cajibiyey muuqaalkan waxa ugu weyn aad nagu caawin kartid ayaa ah inaad subscribe saartid isla markaana aad nagu dhiirigelisid like. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.